والروق لا صور شغية وريا والروق dalkuwaa dalkaygii dadkuwaa dalkaygii dalkuwaa dalkaygii dadkuwaa anagoo raacayna istaraatiijiyadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo in maxay ahaydee dubudhis iyo tayeynta ciidankaba maxay ahaydee dub loo habayn doono dawladdan cusub runtii aad iyo aad ayaanu ugu faraxsanahay maanta inaanu marayno meel wanaagsan oo ku dhow gabagabo waxa noo dhameystiran imika oo halkan qaybtaan dhakadeedii sare taaganahay 7 qol oo aan ugu tala galay maxaabiista oo qol waliba suuligiisa iyo weysadiisii iyo biyihiisiiba leeyahay tuugayga noloshana ciidan uga dambeeyo ina doorka laytan duruufii dhacay baray tuugayga noloshana ciidan uga dambeeyo ina doorka laytan duruufii dhacay baray damaciya hinaasiyo dirqimaha noloshee damaciya hinaasiyo dirqimaha noloshee ninka taa dareensani dibawliqa candhuufta oo dibnaacee la raamsado ninka taa dareensani dibawliqa candhuufta oo dibnaacee la raamsado nikaan daris wanaagiyo inaan laba dal noqoniyo samuhu aanu deeqino waxba hay dardaar wari daniba way ku yeelsiin وبالعادي تلي تنيو وحويان waxa loogu tala galay inay qayb ku soo dhacdo qaybta kalena dhinac qaar laba bilaacood oo weyn ba sameynaysaano halkan qolada farsamayaqaaninta waxa sameynaya albaabadii bay sameynaya halkan ma shaqaysanaysa bartan shaqaysanaya wax walba halkan ku sameeysan soo iibsanayno suuqa soo iibsanayo caasimo jiraan halkan qalabkeegi waxayga dhan waan leenahay halkan ku sameeysanay weynigi meesha gilna cagaf ku xaadlay gidaarka imika waxa ka dambeeya gidaar kale oo diin ba ka dambeeya aan ka dambeeyay waa hagaag الحمد لله waxa maanta kormeer noogu yimi taliyaha guud ee ciidanka guuleyska dhismahan aanu wadnay oo imika 2 bilood socday oo bilownay 2 bilood ka hor الحمد لله رب العالمين wuxuu marayaa meeshii ugu wanaagsanay dhismahani waa shub halkan aynu maanta taaganahay waxay ahayd jiingad yar qolaal yar yar oo 4 qolob ka dhisnaa oo jiingada oo maxamed xaashi saaray maanta intaanu cagaf gelinno xaadnay amarka taliyaha ciidanka intaanu cagaf gelinay oo ka xaadnay ayaanu ka dhisnay shub ciidanka biliisku deyrna u soo sameeyno deyrkaasina uu ka dambeeyay saldhigii horena dhamaantii repairing baa lagu sameeyo gidaaradiisii iyo waxa la wixiisii oo dhan dub baa loo habeeyay mar baa la dhigayaa jabis baa lagu xidhayaa waa la qurxinayaa waxa uu la jaan qaadaya dhismayaasha casriga ah ee imika dhulka ka jira ayuu la jaan qaadi doonaa insha Allah bismillaahi kariim hogaanka dhismaha ayaa fuliyay dhismahan amarka taliyaha ciidanka siyaasadda taliyaha ciidanka oo ah inuu ciidanku helo dhismayaal hoy masxaabiistuna ay hesho meelo lagu dayactiro oo u qalma oo wanaagsan waxaan hore u soo dhameynay qaybtii galbeed maantana qaybtii barigaanu wadnaa oo insha Allah si dhaqso ah way noogu dhamaan doontaa aad iyo aad baan taliyaha ciidanka ugu mahad celinaya kormeerkiisana maanta uu nagu soo maray shaqadii oo socota ayuuna soo maray taliyaha ciidanku aad baan ugu faraxsanahay maanta inuu kormeerkan nagu soo maro oo shaqadu halkay marayso ogaado bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciin ala umuuri dunya wad-diin ilaahay baa mahad leh mahadoo dhan alla iska leh subxaanahu wa tacaala mahad ilaahay kadib waxaan maanta kormeer ku joogaa dhismahan aynu dhakadiisa sare taaganahay oo shubkii u sarreeyay aynu imika taaganahay oo ah dhisme uu dhisaayo ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland qaybta bari ee Hargeysa iyo saldhigga
gacan libaax oo isku jira oo halkan aanu ka fulinay dhismo weyn oo runtii anfici doona qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mustaqbalka oo dhismihiisa imika gabagaba yahay anagoo raacayna istaraatiijiyadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo in maxay ahaydee dubudhis iyo tayeenta ciidankaba maxay ahaydee dub loo habayn doono dawladdan cusub runtii aad iyo aad ayaanu ugu faraxsanahay maanta inaanu marayno meel wanaagsan oo ku dhow gabagabo waxaa noo dhammaystiran imika oo halkan qaybtaan dhakadeedii sare taaganahay 7 qol oo aanu ugu talagalay maxaabiista oo qol waliba suuligiisa iyo weysadiisii iyo biyihiisiiba leeyahay iyo masaajid aanu ugu talagalay inay maxaabiistu ku tukato markii hore maxbuusku marka uu soo galo jeelka diintu waxay kaga hadhaysay dibadda laakiin waxaanu doonaynaa inuu diinta u soo raacino gudaha maxbuuska oo uu helo meel uu ku cibaadaysto iyo meel uu ku tukado iyo meel lagu wacyigeliyo dhalinyarada oo maxay lagaga wacyigeliyo inay salaada Ilaahay tukadaan sidaa darteed anagoo ka duulayna taa waxaanu u samaynay qol wal oo kamida maxaabiista lagu xidhayo suuligiisa baanu u samaynay gooniya waxaanu u samaynay weysadii uu ku weysaysanayay waxaanu u samaynay masaajidkii oo ku dhex yaala jeelka oo uu ku tukanayo haddii Allah awood leh ogolaado waxa kale oo dayactiray dhammaan qaybihii kala duwanaa ee qaybtan iyo saldhigan oo ka kooban ilaa dhowr iyo 10 qol ayaanu dayactiray oo dayactir ku samaynay maxay ahayd wanaagsan oo nu dhigaynaa marmar iyo maxay ahayd ku xidhaynaa maxay ahayd iyo gidaaradiisa baanu dub maxay ahayd u hagaajinaynaa waxa kale oo samaynaynaa hoolal ciidanku seexdo oo dusha sare saari doono haddii la yiraahdo waxaanu samaynaynaa dhammaan ribeedin qurux badan oo sida nashqada ku taala maxay ahayd saldhigii hortiisa ku dejinay ka turjubayso oo lamida saldhigii hore ee qaybta galbeed ay maxay ahayd dhammaystiray lamida ama maxay ahayd ka weynba ayaa halkan ka suura galaya ilaahay baa mahad oo dhan leh mahad labaadna waxaanu celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar walba nagu garab taagan dubudhiska iyo habaynta ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow inuu askarigeenu helo meel uu marka uu shaqada ka dago ku raaxaysto oo uu seexdo oo uu ku helo biyo ku filan iyo hurdo ku filan uu ku helo sidoo kale maxaabiisteena dambiga galaysa ee maxay ahayd aynu xidhayno inaynu ku xidhno meel u qalanta oo dhul qalmayno ku xidhmaan oo ay ku cibaadaystaan oo iyagoo xidhanay cibaadadooda iyo wixii maxay ahayd noloshooda asaasiga ah oo dhan ku yeeshaan waxaynu ka hadli doonaa insha Allah billahi kariim aynu soo bandhigi doonaa dhismahan marka uu dhamaado insha Allah billahi kariim aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hoggaanka dhismaha ee ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo tiimka iyo dhammaan ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland oo si hagar la'aan uga qayb qaadanaya dhismahan oo maxay ahayd sarkaal iyo askariba si hagar la'aan looga wada qayb qaadanayo oo nu dhammaantayo u taaganahay inaanu dubudhis ku samayno dhammaan saldhigyada iyo qaybaha booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan gobolada haddii Allah awood leh ogolaado mustaqbalka dhow waxaan bilka giigsan iyo kabaha gadafta uga xidhan waxay taariikhdu tahay 11 bisha 9aad 2025 waxaan kormeer ku maraynay dhismayaasha sideen hore u soo aragnay qaybta bari ee caasimadda Hargeysa iyo saldhigga gacan libaax ee isku jira inuu soo kormeeray imkana waxaanu kormeer ku maraynaa saldhig weyn oo aan ka hirgelinay annagoo iskaashanayna dawladda hoose waqooyiga magaalada Hargeysa eriyada Cawadhala waxaan guraha habeenimo ku guclaynayaa yeengayga ugu meersanahay koruu dadku seexday badi albaabkana soo gudbeen waxaa gabadanada iyo jubahaan kala go'ayn guryahay hor taagayeen anigoo gaadhka u hayaa dadkaygu inuu ku gamo guliyo sharaf iyo ammaan dambiyada culus suuligiisina guduhu ku leeyahay waaya kaa maxaa ugu tala gashay waa saliigii وكان كحجين بلا كسر حدان كفرنا. okay بطل كسر كفرنا. asabada ka furtay okay بدن بحنا سبتو. marka kan waa shub wana dambiyada culus baa ugu tala gashay ليش كنت تبدا حول انه واحد وين محابيس تصور كان عم قلت لك عيدا كوكل عيدا كان قاعد كنت جالس بدل ياكل meel ay seexda عدي وايضا قدنا محابيس marka halkan tumbooyinka xabiisyada halkan ka soo ridina halkan ay ku wada shaqeyso
waa la dhisayaa dhismihii baa dhammaan halkan ay ku wada dhacayaan dhammaan halkan ka dhaceen waa la soo dhisayaa wayna la hoostan soo shubnay marka halkan ay iyaduna ku dhacay laakiin ku talagalnay in iyaduna uu noqdo qol weyn oo la ilaahay baa mahad leh allaha boqorka ah ee awoodiisa iyo xukunkiisa aynu ku hoos jirnaa mahad oo dhan leh hawlaha oo dhan inoo fududeeyay waa mahad oo dhan leh maanta ay taariikhdu tahay 11 bisha 9aad 2025 waxaan kormeer ku maraynay dhismayaasha sidaynu hore u soo aragnay qaybta bari ee caasimadda Hargeysa iyo saldhigga gacan libaax ee isku jira inuu soo kormeeray imkana waxaanu kormeer ku maraynaa saldhig weyn oo aan ka hirgelinay annagoo iskaashanayna dawladda hoose waqooyiga magaalada Hargeysa eeriyada Cawadhalad runtii saldhig aad u weyn baan halkan ka dhisaynaa annagoo isla kaashanaynaa maxay ahayd dawladda hoose ee Hargeysa oo uu hogaaminayo maayarka caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay mahadi waa gabagabo meel fiican bay maraysaa shaqaduna si wanaagsan bay u socotaa kormeerkaygu maanta dhismuhu ahaa runtiina aad iyo aad bay wanaagsan tahay dhammaan waqtigaan ugu talagalay iyo xilligaan ugu talagalay bay dhammaan ku soo gabagaboobaysaa insha Allah billahi kariim anagoo fulinayna istaraatiijiyadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sidaan horeba u sheegnay ee ahayd tayeynta ciidanka iyo dubudhiska saldhigyada booliiska waxaanu ku tala jirnaa meel kasta oo baahi ka jirto inaanu daboolno insha Allah billahi kariim meel wanaagsan baan maraysaa saldhigana dhawaan uu gabagaboobayaa ciidan ku filan oo xaafadan oo hore aanu lahayn saldhig booliis ku filan doonana insha Allah waan rajaynaynaa inaanu isagana buuxin doono haddii Allah wada la ogolaado saldhigana waa saldhig weyn wuxuu leeyahay qaybtii taraafikada iyo qaybtii maxay ahayd ciidanka booliiska ee caadiga labadaba uu leeyahay laanta taraafikadana qaybtaas oo maxay ahayd ayaa loo dhisi doonaa iyadana dhawaan aanu bilaabi doonaa haddii la yidhaa imika waxa gabagaba inta saldhiganaynu ku dhex jirro oo runtii aad u weyn oo qaybo badan xafiisyadii iyo xabsiyadii iyo servicekii loogu talagalay in loogu adeego bulshada reer Soomaaliland dhammaan u dhameystiran yihiin ayaan maxay ahayd kormeerkeedii imika wadnaa shaqaalaha gacanta ku haya iyo dhammaan injineeris gacanta ku hayana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa